ma haysataa baasaboor Soomaali hadday jawaabtu tahay haa waxaa jira hal arrin oo muhiim ah inaad ogaato baasaboorka Soomaaliga waxaa ku qoran gender laakiin wadamada kale baasaboorkooda waxaa ku qoran sex waa kuwan wadamada dariska ah sida Kenya Uganda Ethiopia iyo Sudan waxaa ku qoran baasaboorradooda sex wadamada muslimka ah sida Yemen Sacuudi Carabiya midowga Imaaraadka Carabta iyo Qatar waxaa ku qoran sex wadamada reer galbeedka ah sida USA UK Canada iyo Norway waxaa ku qoran sex haddaba maxaa baasaboorka Soomaaliga loogu qoray gender labada kelmadood ma kala macno duwan yihiin aan ku bilowno qaamuuska Ingiriiska ee Oxford sida uu ku macnaynayo labadan kelmadood kelmadda sex wuxuu leeyahay ahaanshaha lab ama dhadig waa sida dabiiciga ah ama abuurka alle kelmadda genderna waa ahaanshaha lab ama dhadig gaar ahaan iyadoo la tixgelinayo sida uu qofku isu arko ama bulshada uu ku dhex nool yahay ay u arkaan taas macnaheedu waxa weeye waxaa jiri kara wax aan lab iyo dhadig ahayn sidoo kale cilmi baarayaasha arrintan ku takhasusay waxay sheegaan in kelmadda gender sanadahan dambe ay fasirayso jiritaanka wax aan ahayn lab iyo dhadig haddaba diinta islaamku sidee bay u aragtaa arrintan waa kan Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil oo fasiraya galbeedku waxay rabaan inay yiraahdaan genderku waa state of being male or female bay yiraahdeen waa qofku inuu ahaado nin ama gabadh maaha ninka iyo gabadha inuu naqaano waxay leeyihiin waa dowr ijtimaaciya ee dowr biology maaha inagu ninka iyo gabadha waxaynu u naqaanaa qof qaab ilaahay u abuurayna gabadh baynu dhahnaa qof qaab kale ilaahay u abuurayna nin baynu dhahnaa kani ma aha si kale haddaan u tilmaamo waxa weeyaan gabadha waa la ninayn karaa tacbiirku si fududba gabadha waa la ninayn karaa ninkana waa la gabadhayn karaa walidalik ayay waxay qabaan insaanka bulshada iyo qaabkay ula dhaqanto ayaa ama nin ka dhiga ama gabadh ka dhiga waxaa laga yaabaa tacaabiirta tan inay qariib idinku noqotaan sheegaya wadaadku miyuu waasheeye waxaanu ka hadlaya ma aha wax nin weyli sheegay bay idinla muuqato laakiin waa afkaarta munadamaadka caalamiga ahi maanta ay rabaan inay qaanuuniyanna u dejiyaan dadka muslimiintana dusha laga saaro munadamaadkan aad arkaysa tirada badan lee capacity building baan wadnaa leh wax sharxaya waxa ay sidaan bihada tacbiir inaanay u sheegin baa laga yaabaa laakiin tacaabiir kale iyadoo fudud oo dadku u aqbali karo iyadoo sidata haddaba wadamada reer galbeedka ah oo u ololeeya arrimahan baasaboorradooda kumayna qorin kelmadda gender sababtoo ah waxay ka mid tahay arrimaha ay weli ka doodayaan marka haddaan nahay Soomaali Muslim Afrikaan oo diin ahaan iyo dhaqan ahaanba ayna bulshadu aqbali karin arrintan maxaa keenay in baasaboorka Soomaaliga lagu qoro kelmadda gender dabcan waxaa jira hay-ado u ololeeya sidii Soomaaliya looga heli lahaa dhaqamo shisheeye oo aan dalkeena horey loogu arag waxayna ku bixiyaan dhaqaale badan siday rabitaankooda u gaari lahaayeen sidaa daraaddeed in baasaboorka Soomaaliga dad shisheeye inugu qoraan kelmadda gender waxay caddaynaysaa in haddii aynaan hurdada ka kicin danaheena iyo mustaqbalkeennana gacanta ku dhigin sidii la doono la inaga yeeli ma ka heshaa barnaamijyada dalsoor ka baxa ma aaminsan tahay fikrada ay dalsoor ku salaysan tahay oo ah midnimo Soomaaliyeed isku filaansho
iyo in la helo qaran awood leh oo Soomaaliyeed. Fadlan ka mid noqo taageerayaasha Dalsoor adigoo bixinaya $5 ama $10 bishii. waad mahadsantihiin.